السلام عليكم. هدي aad ku cusub tahay channelkan Diyaarama Lacabta fadlan subscribe saar la soco barnaamijyada wiikiiba hal mar hooyo iyo dhalaan. Maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay khataraha soo wajihi kara hooyada saddexda bilood ee ugu horeeya uurkeeda. Haddaba waxay noqonayaan khataraha hooyada soo wajaha saddexda bilood ee ugu horeeya sida ilmo qoolanka ama ectopic pregnancy afka qalaad lagu dhaho ama ilmihii ku abuurma meeshii Ilaahay ugu talagalay meel aan ahayn ku abuurma. Haddaba intaynaan ka hadlin si uu dhaco ectopic pregnancy-gaasi ama ilmahaasi sababuhu ugu abuurmi waayay ama siduu ugu abuurmi waayay meeshii Ilaahay ugu talagalay, waxaan ka hadlaynaa horta marka hore caadiyan sidee buu ilmuhu u dhacdaa bacrimintiisu ama uu samaysmaa. Waxa u dhacdaa tubka waxa jira makaanka tubka ku xidhiidhsan oo isku xiriiriya ugxan-sidayaasha iyo ilmo galeenka. Haddaba ugxan-sidayaashu waxay soo daayaan ugxan, waxay ku soo daayaan tubka dhexdiisa meeshaas oo loo yaqaan ambulaha ay yimaadaan. Aabaha minidiisii baa soo gasha meeshii, waxay u timaadaa ugxantii hooyada ayay ambulihii ugu timaadaa, way kulmaan. Markay kulmaan ayaa waxa dhacda bacrimintii, halkaas bacrimintii ka dhacdaa. 7 cisho halkaas sii joogaan ambulaha tubka dhexdiisa waxay isku bedelaan wax loo yaqaan zygote ama unug yar. Unuga yar baa wuxuu doonaa waxa loo soo daadajiyaa qaybta makaanka qaybtii ilmo galeenka loo soo daadajiyaa si uu ugu dhago gidaarkii makaanka halku ku samaysmi Ilaahay ugu talagalay caadiya. Dabadeedna waxa caawiya wax loo yaqaan gan yar ama cilia timo yar yar oo ku yaala tubka dhexdiisa ayaa caawiya si uu soo dulceeyo oo dadka markuu soo dulceeyo uu yimaado makaanka gudihiisii uu qabto gidaarkii loogu talagalay Ilaahay ugu talagalay inuu halkaas implementation ku sameeyo qabsado dabadeedna uu halkaa uu ku koro uurjiifkii. Haddaba marka xilligan ayay dhacdaa khatarta ugu badani marka xilliga bacrimintani dhacayso ayay dhacdaa khatarta ugu badani. Waxa dhaca ectopic pregnancy ama waxa loo yaqaan ilmo qoolanka ama ilmihii ku samaysmay meel aan Ilaahay ugu talagalin. Haddaba waxa dhacaysa halkan markii 7 cisho bacrimintii ay ka dhacdo halkii loogu talagalay ee maalintii 8aad la doonayay inay soo daadagtay timaado makaanka dhexdiisa ayaa waxa dhici karta in wax xidha tubkii ay jiraan. Haddaba wax kasta oo xidha tubka oo u diida in unugan yari soo daadago makaanka dhexdiisa yimaada waa sababta keentay ectopic pregnancy ama ilmo qoolanka. Sida inay gankii yara uu dhamaado ama uu caabuq ku dhaco oo dabeetana halka godgod yar oo yeesho dabeetana waqti qaato in unugii yara soo daadago uu yimaado makaanka dhexdiisii. dabeetana markuu soo daadeg ilmihii waqti bay qaadanaysaa unugii yara dabeetana halkii ku koraya dabeetana halkaas uu qabsanayaaba. Markii gaadho xil meeshu uu qabsan lahaa uu tagi waayo ayuu bartaaba qabsanaya ku koraya. taa halkaas uu ka dhici karaa tubka laftirkiisa ilmo qoolanku wuxuu ka dhici karaa ovariga laftirkiisa ugxan-sidaha laftirkiisa dhexdiisa ka dhici karaa. Waxa dhici karta xilligan manidii aabuhu meesha soo galayso inaanu ugxaantiba ka imanba ugxan-sidihii oo ugu tagto ugxan-sidaha dhexdiisii agtiisii ugu tagto dadna uu ka dhaco bartaas bacrimintii ka dhacdo. Waxaaba dhici karta in makaanka dibadiisa uu ka dhacdo. Waxa dhici karta in makaanka afkiisa ka dhaco in makaanka dhexdiisaba ka dhaco ilmo qoolanku oo qabsan kari waayo halkii Ilaahay ugu talagalay. Haddaba maxaa sababa tubkan inuu dhaawac gaadho? Waxa sababa wax loo yaqaan pelvic inflammatory disease. waxa weeyaan infection-ka ku dhaca xubnaha taranka ama caabuq ku dhaca xubnaha taranka kaasoo dhaawac u geysta siiliyihii yaryaraay caawinayay unugan inuu soo daadago. waxa kale sidoo kale in ovariga ka dhaco ama ugxan-sidaha uu ka dhaco ilmo qoolanku taasaa sababi karta. Waxa ugu badan ee loo aaneeyay inay sababaan waa caabuqa ku dhaca taranka xubnaha taranka ku dhaca. Waxa dhici karta in tubka qalqallooc sameeyo oo dadna dulcaynta ilmuhu soo dulkari weydaba. Waxa karta
in makaan markuu kasoo hadduu kaba soo daadego maxay toolay uu kasoo baxaba tubekii uu yaha makaanka dhexdiisii kaalay uu dadana implementation uu ku noqon lahaa makaankii in makaankii bura ku taalaaba dhici karta dabeetana ay dhici kari weydo inuu implementation dhaco waxa kale haddaba maxaa sidee baa lagu ogaan karaa xaaladani hadday dhacdo xaaladani waa xaalad aada u halis badan oo u khatar badan laakiin sidee baa lagu ogaan karaa inay dhacdo waxaa lagu ogaan karaa inay hooyadii ka cabato ama ay sheegto xaaladda ah inuu dhinac xanuunayo oo beyn badan ay dareemayso xanuun aada u fara badan ay dareemayso inay hooyadu dhiiggii weyday caadada haddaba muxuu sababi karaa xaaladani hadday dhacdo maxay sababtaa waxay ku sababaysaa xaaladdan hadday dhacdo waxay hogaaminaysaa inay hooyadu uga dhimato xaaladdan waxaa dhici kara tubekii meeshu waa meel yaroo laguma talagelin tubkan yar yaa meesha inay ku samaysto inuu tubekii qarxo oo deeta markuu qarxo halkaa dhiigbax uu ka yimaado deeta ile hooyadiis ma garanaysa dhiigbixi hooyada gudaheeda intuu dhiigbax ka dhaco dabeetana ay hooyadii shoog gasho deeta hooyadiisa ay ku dhimato waa sababta markasta loo yidhaahdo hooyadu waa inay goob caafimaad ku xidhnaato iminkana waxaan leenahay hooyadu waa inay goob caafimaad ku xidhnaato xilli kastay hooyadu weydo dhiiggeeda caadada sababtuna waxa weeyaan waxyaabo badan ayaa dhici kara xilligay hooyadu ay weydo caadada sida ilmo qoolankii baa dhici kara waana arrin aada u khatar badan oo hooyadii dhibaato badan u geysanaysa oo xitaa nafteedii ay kuba waayi karto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaasuu barnaamijkeena ku joogayaa weynooya barnaamijkeena dambe